barnaamijka dood abuur ee caawa waxaanu ku soo qaadan doonaa faquuqa ay la kulmaan xilliyada ay tegayaan goobaha shaqada iyo sidoo kale marka ay tegayaan goobaha caafimaadka si aan arrintaasi wax badan aan uga ogaano barnaamijka dood abuur ee caawa ayaad ku daawan doontaan aan ku bilaabo dayrinta qoyska intaanaan u gudagelin bal muuqaal ayaan halkan ka shidi doonaa isla markaasina ay si guud aynu u wada daawan doono mar kale aan idin xasuusiyey waxaa iyaguna goobta nagula sugan ardayda jaamacadaha Somaliland wax ka dhigta oo iyaguna qayb ka noqon doona barnaamijka dood abuur ee maanta isla markaasina aad uga daawan doontaan telefishinka MMTV muuqaalka ayaynu sii dayn doonaa kadib su'aalaha ayaynu gali doonaa darkayga ga dhaxyaa walaalahay markii loo sheegay ay bartiga ga dhaqaaqay أنا هنا كحنوسنا أنا هاي سكستة أنا حنوسة السلام عليكم لا يمسر هنتدي أبهي أنا قلنا البلد هو خلاص ود أنت سنور رعاية إن ولوريك وذلك أبهي ولك يفهمي لوريك يقعد أنا إذا هدرت يوم كسرنا سجد يوم سجد لأنه أضرب حنا يدت كلامنا حنا كأجي في ديسكا مدرسني يتواصل والله يعني كلنا وراه انت انا استجمده واد وخيال بدن ما لا soo kulmay istigmo fara badan qoyska qofka islaamigaaga haduu ka ogaado waxa laga yaabaa inuu ku eriyo oo magaalada ugu tagto qofka markii isagoo HIV qabo faamigiisa eriyo bulshadina uu takoor kaga yimaado waxa laga yaabaa inuu qofkaasi dawadiisa joojiyo oo dhismara ku dhaco halka dawada ka joojiyo marka waxa ku dhacaya inuu dawada joojiyo aad ka dhimitid boornaa qofkaas in la yiraahdo faamigii hantidii aan lahaa in laga qaado oo la yiraahdo ugu dhintay ninkan khalaas wii xanuunka soo laga helay dhibaatooyin badan baan kala soo kulmay haddana waxa weeye ilaahay baan ugu sabray wax walba ilaahay baa keena xanuunka ilaahay baa keena caafimaadka ilaahay baa keena la iska ka ilaaliyo marka uu timaado la yiraahdo cuntadii iyo gurigii la iska ka ilaaliyo sida qofkii qaasiinayso shaqan qofuna ku takooraya xitaa sidii lagu ixtiraami jiray marka hore lagu ixtiraamayo waxa lagu arkaya qof dheer oo dhintay bal lagu arkay dhibaato badan ma soo maray alaan kana cidi kalama xiriira family-ga ilama soo xiriira waa tahay